habeenkii saddexaad ayaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa ka dhacay mudaharaadyo xoog leh oo ay oogayeen dad gadoodsan oo ka cadhaysan dilkii nin ka tirsanaa madawga Mareykanka oo ku baxay gacanta ciidamada Blaiska. dadkaasi gadoodsan ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen saldhiggii ugu weynaa ee magaalada. dilkii isniintii askar ka tirsan booliska Minneapolis ay u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa waxa magaalada Minneapolis ka dhacay mudaharaadyo bilqa watay saddexdii habeen ee la soo dhaafay kuwaasi oo galaaftay hal qof dhowr dhaawac ah iyo hanti badan oo la burburiyay. ciidamada kaydka ee Mareykanka ayaa shaaciyay in 500 oo kamid ah askartooda ay haatan ku sugan yihiin wadooyinka magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul waxaana loogu baaqay in ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta magaalooyinkaasi. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah xilli ay magaalada ka jirto bilaqo iyo hubanti la'aan. dhanka kale waxa aad u sii xoogeystay mudaharaadyadii ka socday magaalada Minneapolis waxaana la arkayaa dadka oo careysan oo gubaya dukaamada isla markaana bilaqeysanaya goobaha ganacsi ee ku yaala wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Minneapolis. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo taageeray aragtida dadka gadoodsan markii hore ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in marka ay bilaqada bilaabato ay toogashada ciidamada bilaaban doonto. madaxweyne Donald Trump ayaa kuwa bilaqada iyo arbushka ka wada magaalada ku tilmaamay in ay marxabaaminayaan kacdoonka xaqa ah ee George Floyd. inkastoo shaqada laga eriyay askartii dishay George Floyd ayaa midkoodna wax dambi ah lagu soo oogin ilaa iyo hadda. taasi ayaana sababtay carada dadweynaha magaalada Minneapolis waxayna sheegeen in ay sii wadayaan mudaharaadyada ilaa laga soo xirayo askartii dilka geysatay. madaxa dambibaarista deegaanka Hennepin Mike Freeman ayaa galabnimadii shalay sheegay in aysan ilaa iyo hadda haynin wax cad oo ay ku eedeyn karaan askartii dilka geysatay. sidoo kale FBI-da oo ah hay'adda dambibaarista gudaha Mareykanka iyo xafiiska dambibaarista gobolka Minnesota oo shir si wada jir ah u qabtay iyaga oo is-ilmeysiinaya ku sheegay in aysan wax caddeyn ah oo ku filan aysan haynin ilaa iyo hadda. dhanka kale madaxa ururka dhaqdhaqaaqa xuquuqda madawga Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Minneapolis isaga oo dadka kula hadlay meel fagaara ah una sheegay in cadeymo ku filan oo dambi lagu maxkamadeeyo ay xir ilaalintu haysato. wuxuuna cilaamiyay mudaharaad ballaaran oo maalinta Sabtida ah laga dhigi doono gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan. dadka ayaa bilaabay in ay nadiifiyaan wadooyinka magaalada Minneapolis waxaana la kulmay AK Xasan oo laga soo doorto magaalada Minneapolis isaga iyo Soomaali kale oo nadiifinaya wadooyinka waxayna TV-ga Universal u sheegeen sida tan. xaalada soo marnaa soo tirnay dhibaatooyin weyn la soo gaarsiiyay laakiin in la soo banaan waa ogolnahay waa dadkii inay maakano xaqooda inay raadsadaan ay u dabaaldegaan مش أصابنا بعد لكن وح كورجنا إن دبعتين لسوقارسيو صوبت ماشين عروة كل من كرت هذا كل من كرت قسارون وين السوقاريا. دب كان هذا وحنا هاي وحلا حماده ولا حنا قواي هسه هات مظاهرات كهلا قبطوا مظاهرات إنها مظاهرات نوع حق وحق أولين هاي لكن إنسان فوش في المجال الله قال له جبي ما من هذا وحما ما فهمت. هذا أنا وعكلين قرينا يا حوج جمال كستوا ولا مرة وح كستوا هجاجنا إن شاء الله بإذن الله الكريم. horta wallahi ma umaleeynin yani misleyn insaan ay noqonaysaa laakiin wax kasto waa wax la fila kar ma aha ya laakiin alxamdulillah aniga waxa aaminsanaanay aqar ilaahayna wax kasta kala wato marka haddana sida xalay waxyaalo badan oo dhacay oo la yaab leh oo xaq daray maantana dad badan isku maada wax nadiifinaya marka alxamdulillah ilaahay doo qaybtaas nagu soo daray hadda runtii waxa way Soomaalida magaalada degan waxa ugu baaqaya inay ka soo qayb galaan in maaragtay sida aragtida dadka kale oo deganay ama community kaleeto waxay caawinayaan in maaragtay magaalada aan dib u kilin gareyno oo maaragtay aan shacabka aan kamid noqono sida maaragtay dhibaatooyin badan oo Soomaalida soo gaartay ogtahay ninka la yiraahdo deeqo waxa kamid ah dhibaatooyinka Soomaalida soo gaartay maqaayada xamdiyo aad loo jijibiyay maqaayada qurxulo ayadana aad loo jijibiyay oo maaragtay naftigeeda dhibaato soo gaartay ninka miskiinka ah inta soo sacab ku lahaa ibliis waa dhimanaya bini aadamnimadana ma aha maxaan ku dhahayaa qof aqal wuxuu sameeyay waxaas ma aha aad baa uga xun ana xaafadar ma degani ma abris ma degani
waxaan ka New Brighton baa deganahay ilaa xal newskan ka arkay maanta carruurtayda aniga waxaan inaan soo eegna bal wixii meesha ka dhacay wallahi magaaladu maanta sidii ahaan jidhay iyo hadda maanta say tahay aad bay u kala duwan tahay magaaladii burbur iyo wasakh aad badan baa loo geystay dee awal magaalo qurux badan oo bilicley bay ahayd haddana dadkii iyo biyihii iyo dhalooyinkii iyo wasakhdii baas dhex yaacaya marka dee gacanta shalay aan ku burburinay baa maanta aan ku dhisanaa kulli dadkii maanta wuu isgartay dadkii dhan maanta ay isku baxeen madow iyo caddaan maanta ay soo baxeen dhammaan dadkii dhan Soomaalida waxa u badnaatay maanta ay soo baxeen waxay rabaan inay dhulkii ay nadiifiyaan duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa sheegay in aan la aqbali karin in aan weli maxkamad la soo taagin dadkii dambigaasi geystay ugu dambeyntii in ka badan 240 goobood oo ganacsi ayaa ilaa iyo hadda burbur iyo bilolqo iyo gubis loo geystay goobahaasi waxaa ka mid ah hanti badan oo leeyihiin dad Soomaaliyeed oo ay u badan tahay in aysan wax caymis ah ku jirin halka dadka habboobka iyo dhaca geysanayana ee Soomaali ka dhex muuqato deeq darajo Universal TV Minnesota